EBZ Channel News. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا EBC Channel News. وعلى كلا سعتان برتا يوتيوبكا يدمان با على ذا انترنتكا. هادبا وركا waxa idin soo gudbin doona anigoo ah Mr. Panorama Style. daawasho wanaagsan warkii oo faahfaahsan. weerar ballaaran oo ah dhinaca cirka isla markaana loo adeegsaday diyaaradaha droniska ayaa waxa Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. weerarkan waxa meelaha qasaaraha ugu waaweyn uu geystay kamid ahaa xarun nukliyeerka lagu kaydiyo oo ku taala magaalada Konipol oo ku taala agaarka ama deegaanka caasimada ee Kiev oo lagu qiyaasay ilaa 133 diyaaradood ayaa waxa ay sheegeen ciidamada dalka Ukraine inay soo rideen 70 kamid ah isla markaana 60 kamid ahna aanay ku dhicin targetkii loogu talagalay. madaxweynaha dalka Ukraine Mr. Zelensky maruu maanta Jimcaha ka hadlayay arrintaasi waxa uu sheegay in qasaaraha soo gaaray xarunta nukliyeerka ay tahay mid kooban. wuxuuna sheegay inay dhaawac halka uu soo gaaray ay tahay derbiga ama xeyndaabka xarunta nukliyeerka taas oo dab uu ka qarxay. isla markiina waxa uu yidhi ciidamada damdamiska ayaa markiiba gurmudka ayaa ka gaaray oo baqtiyay dabkaasi. sida uu sheegay Zelensky wuxuu yidhi waddanka oo dhan ayay ku soo weerareen diyaaradahan meelo badanna way duqeeyeen. xarumaha nukliyeerka oo la isku duqeeya waa meelaha ugu khatarsan ee ay dhibaato weyni ka iman karto haddii la duqeeyo, waayo chemicalka loo adeegsado ama ay ka curiyaan nukliyeerka ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa deegaanka iyo baa'eeda iyo dadkaba. weerarkani waxa uu ku soo beegmay iyadoo hogaamiyaasha caalamku ay shir ku leeyihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka. shirkaas oo ku saabsan amniga isla markaana gaar ahaan looga hadlayo dagaalka Ukraine. warkii caalamka inta ayuu nagaga dhan yahay. waa Mr. Panorama Style oo idin leh isma dhaafno. ha mogaanina EBC News Channel warar xaqiiqo ah ugu fan faalooyin iyo wararka degdega ah. haddaba kala soco EBC News. fadlan subscribe, like